Casemiro oo ku dhow inuu ka tago Man United iyo Sergio Aguero oo magacaabay kooxda halista ku ah difaacashada Manchester City ee Premier League xilciyaareedkan. Haddaba kooxdaasi muuqaalkan ay kugula wadaagi doonaa ee soo dhow daawaday balse marka hore like saar muuqaalka siina share kare. Waana kaaga mahadcelinaynaa sida aad markasta noola socoto. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biiro follow dhaho Bokeena Kulmis Channel. mahadsanid. Casemiro ayaa si dhab ah uga fikiraya inuu aqbalo dalab waali ah oo uga yimid horyaalka Sacuudiga inkastoo ayna Manchester United ku qasbaneen inay iska iibiyaan xidiga qadka dhexe. 31 sano jirkaan ayaa ku dhibaatooday qaab ciyaareedkiisa iyo damaanshihiisa xilciyaareedkan isagoo seegay 13 kulan ee ugu dambeeyay tartamada oo dhan sabab la xiriira dhaawac canqowga ah oo soo gaaray. Casemiro ayaa toddobaadkii hore lagu arkay isagoo ku soo laabtay tababarka kaliya ah waxaana la filayaa inuu ciyaaro kulamada sanadka cusub laakiin lama in uu u ciyaari doono Manchester United iyo in kale iyada oo kooxaha Sacuudigu isku dayayaan inay lacag waali ah ku keenaan horyaalka Sacuudiga. Sida laga soo xigtay Marco Casemiro ayaa dalab aad u muhiimsan ka helay Sacuudiga waxaana uu haatan ka fikirayaa in uu aqbalo dalabkaasi. Casemiro ayaa diyaar u ah in uu bedelo jawiga waxaana uu doonayaa inuu isaga tago Man United suuqa January ee soo aadan. dhanka kale xidigii hore ee Manchester City ahna halyeeyga kooxdaasi Sergio Aguero ayaa si la yaab leh u sheegay in Manchester United ay wali u tartamayso hanashada horyaalka Premier League. Tartanka horyaalka Premier League ayaa u muuqda mid furan iyada oo ay 6 dhibcood oo kaliya u dhaxayso kooxaha Arsenal, Liverpool, Aston Villa, City iyo Tottenham kadib 17 kulan oo la ciyaaray. Waxaa si weyn loo filayay in ay Arsenal iyo Liverpool kooxda Manchester City kula tartami karaan horyaalka laakiin qaab ciyaareedka fiican ee Aston Villa iyo Tottenham ayaa horyaalka ka dhigay mid aan la saadaali karin. Si kastaba haatee ma jirto cid Man United u saadaalinaysa ku guuleysiga horyaalka Premier League xilciyaareedkan marka la eego qaab ciyaareedkooda dhiita. Laakiin Sergio Aguero ayaa meesha ka saarin kooxda Erik ten Hag waxaana uu yiri marna ma dhalaysan kartid Manchester United xilciyaareedkan. iyaga ayaa ah halista ugu badan ee ku guuleysiga Manchester City horyaalka Premier League ayuu hadalkiisa raaciyay laacibkii hore ee Manchester City ahna halyeeyga kooxdaasi Sergio Aguero.